casharka noogu xiga wuxuu noqonayaa markaad rabtid inaad magacaanta soo kala horeysid imika tusaale b iyo c waxa ka horeeya waa m dana f baa kasii horeysa marka xuruuftu soo kala horeeyaan markaan rabno in soo kala horeysiino ayaynu sameynaa oo loo yaqaano ascending and descending. Ascending waxa weeyaan macnaheedu inaad xuruuftaadii aad ka kala dhigatid a to z aad ka soo dhigatid oo xarafka a uu kugu soo horeeyo b uu ku xigo c d halka descending inuu yahay z y x w ay soo kala horeeyaan oo xagga dambe laga yimaado. Marka taasaynu sameynaa waxaad tegaysaa markaa kaad ku sameynaysid baa taabani oo magacaantaas ku sameynaa inagu mid kamid ah dooranaa kabacdina home-kan tegaynaa kadib waxaanu dooranaynaa groupka loo yaqaano sort and filter aynu ka dooranaa ascending. Sidaan loo wada socono waxa ugu horeeya imika b oo bedri ah waxa ku xiga c haddana waxa ku xigta c kale marka c iyo c baa ku xig lambar 2 ah sida koobaad iyo sidaas waa iskaga mid a iyo a waa iskaga mid laakiin y iyo l waxaynu ognahay inay isha horeyso sida daraadeed buu cali u soo horeysay xarafka koobaad haday iskaga mid noqdaan oo kala labaad iskaga mid noqdaan ka saddexaad buu eegaya afar haday iskaga mid noqdaan ka shanaad buu eegaya waxaba haday iskaga mid noqdaan inuu space ku jiro wax badan buu eegaya labadan baal waa inuu xun ku kala duwanaadaan marka hore. Okay, lambaraanta hadaynu iyagana sidaas oo kale ku sameeyno sida caadiga ah ku noqonayaan in maadooyinka iyaga laftooda ku sameynayno waxa la bedelmay macala ardayda magacaantooda waa la bedelmay. Okay, hatta waxa la bedelmay lacagta xilliga isticmaalka ardayga gelinka wargelinka dambe hawsha dhammaada marka lambaraantaas aynu ku deenaynaa sida saxda ah lambaraanta aynu kala horeeyaan 3 5 6 7 8 9 halka waxa ka maqan lambar 4 iyo lambar 2 iyo lambar 1 ogow waxa xasuusnaa casharka hore aynu soo qaadanay lambar 4 lambar 2 iyo lambar 1 saddexdaaba waxaynu ku soo bixinay casharkii delete gareynta aynu saxan ugu soo qaadanay marka asooran wax badan ba ka maqan laakiin si cashar baynu ku soo qaadanay inta sidoo kale imika waxaanu sameynaynaa habka kala hormareysiinta xuruuftu say u kala dambeeyaan say kala horeeyaan marka hore sameynay intaan id-gan ku tijaabinayna home tab ka taabanaysa isla groupkii baad tagaysaa halka descending baad ka dhigaysaa marka maxaa ugu horeynaya lambar 9 8 7 6 5 3 saas xuruufta hadaynu dooranay iyagana waa la mid bay noqonayaan حتى ID cardku ID lambarkooda israacayo la bedelmaya marka xarafka R macnihiisu yahay xuruufta marka la eego ugu dambeeya M baa ku sii F C C P oo ugu horeyn lahayd ayaa ugu dambeynaysa marka saas oo kale sameynaa ascending ayaa laakiin ka muhiimsan descending. Ascending waxa markaad isticmaali kartid waxa kamid ah markaad ilowdid qof ID-giisa ama isaga laftiisa garan waayay ama alaab ID-geedii alaabtaasna tusaalahaan magaceedu ku bilaabmaysa ayaad oran kartaa descending dadana si fudud xagga dambe uga heli kartaa maadaama xagga hore ku soo dhigayo.